qaraxan ka dhacay maanta magaalada Gaalkacyo waxa ku geeriyooday gudoomiyihii gobolka Mudug ee maamulka Puntland marxuun Axmed Muuse Nuur qaraxaasi ayaa ahaa mid ismiidaamin ahaa waxaanu ka dhacay waqooyiga magaalada Gaalkacyo xilligaas uu qaraxu dhacay ayaa gudoomiyuhu wuxuu marayay wado isagoo ka soo baxay xarunta maamulka gobolka qaraxaasi ayaa haleelay gaariga gudoomiyaha waxaanu halkaasi ku nafwaayay gudoomiyihii gobolka Mudug ee Puntland marxuun Axmed Ciise iyo saddex ka mid ahaa ilaaladiisii xarakada al-shabaab oo ka dagaalanta koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya ayaa mas'uuliyadda qaraxaasi ka dhacay maanta magaalada Gaalkacyo sheegatay waa weerarkii labaad ee lagu dilo gudoomiye gobol ka tirsan Puntland 2 bilood gudahood ayuu noqonayaa weerarkaasi ka dhacay maanta magaalada Gaalkacyo dhinaca kalena war saxaafadeed goordhaweed ka soo baxay aqalka madaxtooyada ee dawladda Puntland ayaa lagu yiri inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun madaxweynaha dawladda Puntland mudane Siciid Cabdilaahi Daney oo ku hadlaya magaca dawladda ka shacabka Puntland waxa uu ka tacsiyeeyay geeridii Allah u naxariistay gudoomiyihii gobolka Mudug marxuun Axmed Muuse Nuur oo arxan laawayaasha cadawga ummadda Soomaaliyeed si gaadmo ah oo ismiidaamin ah ku dileen maanta Gaalkacyo isagoo gudoomiyuhuna ku guday jiray waajibaadkiisa shaqo ee uu hayay shacabkiisa war saxaafadeedkaasi ka soo baxay madaxtooyada dawladda Puntland waxa mar kale lagu yiri madaxweyne Daney waxa tiiraanyada geeridaasi la qaybsadaya shacabka Puntland gaar ahaan eheladii qaraabadii qoyskii awlaadii ka baxay gudoomiyihii gobolka Mudug Axmed Muuse Nuur waxaanu laga barayaa inuu u dambi dhaafo samir iyo iimaan ka siiyo shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa Puntland eheladii qaraabadii sidoo kale waxa war saxaafadeedkaasi lagu yiri madaxweynaha dawladda Puntland mudane Siciid Cabdilaahi Daney waxa uu si kulul u cambaariyay falkaasi argagixiso ee la beegsaday gudoomiyaha gobolka Mudug waxaanu madaxweynuhu Alle subxaanahu wa ta'ala uga baryay askartii ku shahiiday weerarkaasi argagixiso in Alle jannadiisii geeyo intii ku dhaawacantayna uu boogadhayo sidoo kale war saxaafadeedkaasi waxa lagu xusay in madaxweyne Daney uu bogaadinayo ka hortagga degdega ah ay ciidamada Puntland kaga hortageen cadawga gobood falkaasi la damacsanaa shacabka iyo mas'uuliyiinta waajibaadkooda shaqo gudanayay ayaa lagu yiri war saxaafadeedkaasi ka soo baxay aqalka madaxtooyada dawladda Puntland waa Cabdirasaaq Koronto telefishinka caalamiga ee SAB